wacan daawadayaal halkani waa Jubba TV kusoo dhawaada wixii gudaha daafaca caalamka inaga soo gaaray warku waxa idin la socodsiinaya anigoo ay Ikraan Shariic cilmi qodobada warkan aad ku daawan doontaana waxa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan muhiim ah la qaatay ismada dhaqanka Puntland ra'iisul wasaare Xamse oo Tunis ka wada kulamo muhiim ah wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la kulmay safiirka dawladda UK u fadhiya Soomaaliya saraakiisha hay'adda socdaalka oo loo furay tababar ku saabsan arrimaha qaxootiga wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kuna la qaatay taliyaha cusub ee Africom wasiir dawlaha madaxtooyada koonfur galbeed oo daafuray shirka agaasimayaasha guud ee maamulka koonfur galbeed dawladda Soomaaliya oo loogu deeqay talaalka COVID-19 akhbaaraadka dibadda warkan aad ku daawan doontaana waxa kamid ah shirkadda Air France oo ganaaxday laba duuliyo oo isku gacan qaaday xilli ay duulimaad ku jireen sidoo kale cunto kariyihii aqalka cad ee Mareykanka oo geeriyooday isku soo noqod wanaagsan daawadayaal qodobka ugu horeeya ee warkeena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo la qaatay ismada dhaqanka Puntland wariyaheena Bushra Bashiir ayaa idin faafahinaysa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo baryahanba ku sugnaa magaalada Garowe xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa la kulmay qaar ka tirsan madaxda ismada dhaqanka ee maamulka Puntland kulankan ayaa waxay ka wada hadleen arrimo la xiriira nabadeynta iyo sidii loo xoojin lahaa hanaanka dawladnimo Soomaaliya ismada Puntland ayaa madaxweyne Xasan Sheekh u sheegay in uu ku dadaalo dhameystirka dastuurka qabyada ah iyo hay'adaha kale ee dawladda waa maalintii shanaad ee uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sugan yahay magaalada Garowe wuxuuna kulamo iyo shirar la yeeshay madaxda Puntland Bushra Bashiir Cabdi Jubba TV magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Xamse ayaa Tunisiya ka wada kulamo muhiim ah Cabdi Fataax Durdur ayaa idin faafahinaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Musa Faki Xamse iyo Musa ayaa waxay ka wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga ka dhaxeeya Soomaaliya iyo midowga Afrika iyo qaabkii loo xoojin lahaa gaar ahaan dhinacyada amniga iyo siyaasadda dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda Algeria mudane Kamal Rasiq waxayna ka wada hadleen xiriirka Soomaaliya iyo Algeria dawladda Algeria ayaa ballan qaaday inay Soomaaliya ka caawin doonto arrimaha abaaraha tababaridda hay'adaha kala duwan ee Soomaaliya iyo la dagaalanka al-shabaab wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la kulmay safiirka dawladda UK u fadhiya Soomaaliya markale Bushra Bashiir ayaa idin faafahinaysa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud ayaa maanta Muqdisho kula kulmay safiirka dawladda Ingiriiska ee Soomaaliya Danjire Kate Foster kulankan oo ka dhacay xarunta safaaradda UK waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Mudane Suleymaan Sheekh Cumar wasiirka iyo safiirka ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka dhaqaalaha labada dal iyo taageerada dadaalada dib u habeynta maaliyadda ee ay wado dawladda federaalka Soomaaliya saaka waxaan shir muhiim ah la yeeshay safiirka UK ee Soomaaliya iyo madax kale ee safaaradda waxaana ka wada hadalnay dadaalada wasaaradda maaliyadda ee dib u habeynta maaliyadda xoojinta ku shaqeynta hanaanka dawlad wanaagga iyo